Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kulanti wacan daawadayaal kusoo dhawaada telefishinka cusub ee Kubadda TV iyo barnaamijka Bogagga Hore ee Ciyaaraha. Telefishinkan waxaad kula socon doontaan channelkeena YouTube-ka iyo weliba bogga aan Facebook ku leenahay oo magacuna uu yahay Kubadda TV. Barnaamijkan Bogagga Hore ee Ciyaaraha aan ugu magac darnay waxaan idinkugu soo gudbinaynaa maalin kasta sheekooyinka ugu waaweyn ee ay qoraan bogagga ugu waaweyn ee dhinaca ciyaaraha ee qaaradda Yurub. Waxaana kaga hadli doonaa arrimaha kubadda cagta ee horyaalada Yurub iyo weliba ciyaartoyda ka ciyaara horyaaladaas. Inta aanan u gudbin bogagga hore iyo wargeysyada arrimaha ciyaaraha ka faalooda, waxaan marka hore eegaynaa natiijooyinka kulamadii xalay ee Champions League. Dabcan laba kulan ayaa dhacday. Mid wuxuu ka dhacay wadanka Talyaaniga, midna wuxuu ka dhacay wadanka Ingiriiska. Ingiriiska waxaa isku arkay labada kooxood ee Chelsea iyo Bayern Munich oo ka socota wadanka Jarmalka. Waxayna ciyaartaas ku dhamaatay 3 gool iyo eber oo guuldaro dhabarka loo saariyay kooxda Chelsea. Sidoo kale kulanka garoonka kooxda Napoli ee dalka Talyaaniga ka dhacayna waxa uu ahaa kulan labada kooxood ay ismari waayeen, natiijadiisuna ay ku soo gabagabowday 1-1 oo labada dhinacba midba uu gool la yimid. Labada kooxood ee Talyaaniga iyo labada kooxood ee Ingiriiska ku ciyaaray intuba waxay sugi doonaan lugta labaad ee tartankan wareegiisa 16aad. Daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka Bogagga Hore ee Ciyaaraha. Maanta waa Arbaco 26 bisha February sanadka 2020. Waxaan eegaynaa bogagga ugu waaweyn ee ciyaaraha ka faalooda iyo maanta sheekooyinka ay ka hayaan arrimaha ciyaaraha. Aan ku horeyno BBC Sport sheekadeeda maanta ugu weyn. Dabcan sheekooyinka maanta ugu waaweyn dhinaca ciyaaraha daawadayaal waxaa looga hadlayaa ciyaarihii ama kulamadii Champions League ee xalay dhacay ee dhex maray kooxaha Yurub. BBC Sport maanta sheekadeeda kuwa ugu waaweyn waxay ka dhigtay Chelsea oo 3-0 ay uga badisay kooxda Bayern Munich ee dalka Jarmalka. Dabcan Chelsea waxay ka tirsan tahay kooxaha ugu tunka weyn ee horyaalka Premier League dalka Ingiriiska. Waxa uu leeyahay wargeyskan BBC Sport, Chelsea waa hubaal hadda in ay ka hartay tartanka kooxaha Yurub ee Champions League maadaama kooxda Bayern Munich ay si xun ugu tumatay markii ay la ciyaareysay lugtii hore ee wareegga 16aad ee tartankan, weliba iyagoo ku sugan garoonkooda magaalada London ee Stamford Bridge. Kooxda Bayern Munich ee hogaaminaysa horyaalka dalka Jarmalka ee Bundesliga waxay raacday ayuu leeyahay wargeysku raadka kooxda kale ee isla dalkaas ka soo jeeda ee RB Leipzig, taasoo iyadu ka guuleysatay 6 maalmood ka hor kooxda Tottenham oo ay isla tartankan lugtiisa hore ee wareegga 16aad ay isla ciyaarayeen Tottenham, iyada oo markaasna guul kala laabatay caasimadda Ingiriiska ee kooxaha waaweyn ay ka dhisan yihiin. Wuxuu wargeysku isaga oo sheekadiisan sii ambaqaadaya leeyahay markii ay Bayern Munich bishii October 7-2 uga badisay kooxda Spurs ama Tottenham, waxay haddana mar kale xaqiijisay in ay ku tumato kooxda Chelsea oo gurigeeda ku ciyaaraysa. waxaase xalayto wacdara dhigay ayuu leeyahay wargeysku laacibka 24 jirka ah ee kooxda Bayern Munich Serge Gnabry, kaasi oo 2 gool ka dhaliyay kooxda Chelsea. Wargeyska ayaa waxa uu intaasi sii raacinayaa in Chelsea hadda uu sugayo ama ay sugayso howl aad u weyn oo la mid ah sidii in la yiri oo kale buur ha fuulaan si ay uga soo kabsadaan 3-0 guuldaro ah, iyaga oo weliba xalay kaarka casaanka ah laga siiyay mid ka mid ah laacibiintooda Alonso. Haddii intaasi aan uga gudbo wargeyska BBC Sport, aan sii ambaqaado barnaamijkeena Bogagga Hore ee imikana waxaan soo qabanayaa Marca, wargeyska ka faalooda arrimaha ciyaaraha ee wadanka Spain.
ciwaanka sheekadiisan aan soo xulanay wuxuu ku leeyahay Messi wuu saxraa markii uu yiri Barcelona sidan uguma guuleysan karto tartanka Champions League. wuxuu wargeyska sheekadiisan leeyahay Lionel Messi iyo kooxdiisa Barcelona xalayto waxay garoonka Stadio San Paolo kala tageen barbaro 1-1 ah kadib markii ay la ciyaareen kooxda Napoli oo gurigeeda ku sugnayd. tababare Quique Setien waxa xalayto uu kulankiisii ugu horeeyay ka ciyaaray tartanka Champions League isaga oo markaas kooxdiisana ay isku diyaarinayso tartanka El Clasico ee ay la yeelan doonto kooxda ay sida weyn u xifaaltamaan ee Real Madrid. laakiin wuxuu wargeysku leeyahay Messi mar uu la hadlayay wargeyska Mundo Deportivo waxa uu sheegay in Barcelona aysan sidan haday ku sii socoto ku guuleysan karin Champions League. taasina xalay Naples ayaa cadeyn u keentay ayuu leeyahay wargeysku. waxa ay ahaayeen xalayto labada kooxood kuwa si aad ah isugu dayay midda kale inay ka guuleysato. Barcelona ayaa ah ayuu leeyahay wargeysku kooxdii u muuqatay inay ka fiicneed Napoli laakiin 1-1 way dhaafin weysay waxaana ugu dambeyn ciyaarta oo gabagaba ah ka qaatay kaarka casaanka ah ciyaartooygooda Arturo Vidal. waxaana la filayaa in 18 bisha March ay labada kooxood lugta labaad ku ciyaaraan. waxaase kale oo xusid mudan ayuu leeyahay wargeysku in Messi xalayto uu markii ugu horeysay ku ciyaaray garoonkan uu horey u ahaan jiray waa garoonka kooxda Napoli horey waxa uu hoy ugu ahaan jiray ciyaartooygii rugcadaaga ahaa ee wadanka isagoo ka soo jeedo ee Argentina Diego Armando Maradona. labada kooxoodna kulankoodii ugu horeeyay abid ee taariikhda ayay ciyaareen waa Barcelona iyo Napoli ayuu leeyahay wargeyskan. intaas haddii aan uga gudbo wargeyska Marca ee dalka Spain iminka waxaan u talaabayaa wargeyska Daily Mail ee wadanka Ingiriiska. wuxuu ka hadlayaa sheekooyin taas ka duwan oo markaasi uu ciwaankeeda ka dhigay kooxda Manchester United waxay xaqiijisay in ay u dhowdahay inay xaqiijiso sidii ay kula soo wareegi lahayd ama heshiis ay meel u sii dhigan lahayd ciyaartooyga kabtanka u ah kooxda Aston Villa ee Jack Grealish. 45 milyan oo pound ay doonaysaa in kooxda Reds ay isbuucan ku gabagabayso heshiis ay kooxdaas kula soo wareegayso iyadoo ka hortagaysa ayuu leeyahay wargeysku in qiimihiisa uu kor u kaco kadib marka la ciyaaro tartanka dalalka qaramada qaaradda Yurub ee Euro 2020. waxa Red Devils ayuu leeyahay wargeysku ay rajeynaysaa in 24 jirkan kubad sameeyaha ah ay marka ay la soo wareegto hadda intay heshiiskiisa meel sii dhigato oo la sii heshiiyo in marka uu sidaas u furmo suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ee xagaaga in markaas ay horey kala soo wareegto ciyaartooygan balse wuxuu leeyahay wargeysku waxaa la soo tabiyay in Manchester United ay doonayso inay heshiiska hadda sii afjarto ka hor inta aan la qaaliyeynin qiimaha uu hadda ciyaartooygan joogo. Grealish waxaa la filayaa in uu ku biiro kooxda England ee qaranka markiisii ugu horeysay uuna ka qayb noqdo ciyaartooyda u safanaysa qaranka Ingiriiska tartanka Euro 2020. waxaana taasi ay noqon doontaa in ciyaartooygan isha lagu wada hayo sida uu tartankaas meel uga gaaro. waa hagaag haddana waxaan u talaabaynaa dhinaca Talyaaniga. Football Italia ayaan eegaynaa sida caadada noo ahayd iyo sheekada uu maanta ka qoray arrimaha ciyaaraha. dabcan wuxuu maanta sheekadiisa ugu weyn mid kamid ah ka dhigay Napoli iyo Barcelona. wuxuu wargeysku leeyahay Napoli waxay dagaal adag u gashay inay Barcelona guul ka qaadan weyso garoonkeeda oo ugu yaraan ay ka dhigaan ciyaartaasi barbaro. waxaana uu wargeyska leeyahay Napoli waxay sidan suurtagelisay iyadoo ciyaartooy muhiim ah ay ka maqnaayeen kuwaasina waxaa ka mid ah Claudio Calobali oo dhinaca difaaca uga ciyaara iyo waliba Fernando Llorente. waxa kale oo ka maqnaa kooxda Napoli laba ciyaartooy oo kale oo iyagana dhaawac aan ahayn balse aan si buuxda 100% diyaar ugu ahayn inay ciyaarta saftaan. ciyaartooy kale ayaa sidoo kale halkaas ka maqnaa halka Barcelona uu leeyahay wargeysku iyadana ay xalayto si aad ah u tabaysay laacibiin ay ka mid yihiin Luis Suarez, Ousmane Dembele, Sergio Roberto iyo waliba Jordi Alba.
sidoo kale waxaa Barcelona xalayto ay ka qaatay yellow ayuu leeyahay ciyaartooyga Sergio Busquets oo khadka dhexe si weyn uga dhex muuqday kaasoo isagu marka aysan u suurtagali doonin in lugta labaad ee Barcelona ka dhici doonta uusan ciyaarin sidoo kale waxaan ciyaari doonin lugta labaad isna Arturo Vidal oo kaarka casaanka ah xalayto ka qaatay ciyaartaasi intaas hadii aan ku dhaafno football Italian waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena bogoga hore ee wargeyska Metro isagana ka soo baxa wadanka Ingiriiska wuxuu leeyahay wargeyskan ciwaanka aan ka soo xulanay Arsene Wenger wuxuu sheegay in Chelsea ay jabisay xeerka koowaad markii ay la ciyaaraysay kooxda Bayern Munich ayna guul darrada ka qaadatay Arsene Wenger wuxuu ka wadaa ayuu leeyahay wargeysku marka uu sidaas u sheegayo in Chelsea ay rule number 1 ay jabisay in marka horeba ay xishan weysay khadka dhexe oo khadka dhexe si weyn looga wareegay taasoo uu aaminsan yahay Arsene Wenger in hadii mar khadka dhexe lagala wareego ciyaartaas oo dhan aadan waxba ka qaban karin kooxda wiilasha Frank Lampard ayaa markii hore inta ay qaybta hore ciyaarta socotay ayuu leeyahay wargeysku waxay ku guul dareysteen in ay ka faa'iideystaan fursado badan oo ay kooxda hoggaanka ugu qaban lahaayeen ciyaarta Bayern Munich ayaase waxa ay ardaadiqo ka dhigtay kooxda Chelsea marka ay isku soo laabteen haafkii labaad ama qaybtii labaad ee ciyaarta iyada oo 3-0 ciyaartaas ay ku dhamaatay Chelsea howl adag ayaa sugaysa 18 bisha March marka Jarmalka la tago oo guriga kooxda Bayern Munich lagu ciyaari doono intaas ayaan daawadayaal ku soo gabagabeynayaa barnaamijkeenii bogoga hore ee ciyaaraha waxaad kala socoteen telefishinka Kubadda TV anigoo Cabdishakuur Casoowe ayaa idin la socodsiinayay soo saaraheenuna waa farsamayaqaanka faraha fudud Murash inta aan barnaamijkan lamida ku kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo